waxaanu halkan ku fadhinaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Cabdinuur Sugaal iyo gudoomiyaha guud ee xafiiska imtixaamaadka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Daawud Axmed Faarax madaxa waaxda dugsiyada sare ee imtixaamaadka qaranka Mahdi Xasan Suldaan iyo madaxa imtixaamaadka ee gobolka Awdal Cadar Maxamed Geele dhamaantayo waxaan maanta halkan fadhiynaa iclaamino imtixaankii loo fadhiisanayay imtixaanka shaqo qaran ee ay ku tartamayeen ardaydii gobolka Awdal ama kootadii loogu talagalay gobolka Awdal oo dhanayd 220 qof ama 220 arday oo u kala astaysnayd in 143 raga ay noqdaan ardayda soo bixi doonta inama ahaan xagga haweenkana loo qoondeeyay 66 gabdhood in dadka markaasi ama curyaamiinta ama dhagaha la'ana loogu talagalay in 12 qof ay helaan oo ah 5%. waxaan hadaba markaasi sheegayaa in haddii Ilaahay raado bari oo sabti ah bishuna tahay 22 bisha 12aad ee 2018 ay dhammaan ardaydu u soo diyaar garoobaan imtixaankii lagu kala saarayay imtixaanan muxuu ahaayay barnaamijka shaqo qaran ardayda imtixaanka u fadhiisanayso tiradooda guud ay dhan tahay 521 qof ama 521 arday waxaan wargelinayaa inay 7 subaxnimo ay ka soo xaadiraan dugsiga sare ee Sheekh Cali Jawhar halkaasi oo ay ku dhajisan yihiin liisaskii ay fasalada si ay u kala gali lahaayeen waxaan dhammaan ka codsanayaa markaa ardayda inay nidaamka iyo anshaxa markaasi ilaaliyaan iyadoo halkaasi ku diyaar yihiin dhammaan howlwadeenadii loogu talagalay imtixaankaas waxaan rajaynayaa in insha Allah imtixaankana noqdo mid u dhaca sida ugu wanaagsan ugu cadaaladsan cidii Ilaahay markaa ugu talagalay ee markaa halka ku guuleysatana ay si cadaalad u soo bixi doonto insha Allah markaa dhammaan waxaan leeyahay hana la wargeliyo dadka markaa ama dhagoolayaasha ah gaar ahaan waliba dadka dhagaha la oo kootadooda ama 12 qof ku tartamaya iyo dadkii curyaamiintii dadka kale inay maqlaan ba laga yaabaa laakiin dadka dhagoolayaasha waxaan jeclaan lahaa cid kasto markaa ama qoys la ama family la ama ku agdhow inay bari ay Sheekh Cali Jawhar tahay gaar ahaan maaha cid kasta inay imanaysa waa cidii soo xereysatay barnaamijka ee la hayo dokumentkoogii insha Allah waxaan rajaynayaa meesha waxa la xareeyay dhammaan shahaadooyinkii ardaygu lahaa inaan muxuu ahaayay kaarkii dhalashada Soomaaliland marka qof kasta kaarkii dhalashada Soomaaliland soo qaato iyo sawiradii uu keenay mid kamid ah oo labadii sawir laga xareeyay xibadii kale oo saddexaad markaa soo qaato iyadoo loogu dhajinayo markaa imtixaanka insha Allah waxaan rajaynayaa ka gobol ahaan inaynu noqonayno markaa gobol si wanaagsan u tartama nidaamkii anshaxana markaasi ilaaliya oo jaaniska markaa ka faa'iideysta waxaan halkan ku soo dhaweynaa aad uga mahad celinayaa gudoomiyaha xafiiska imtixaamaadka oo isagu gobolkeena door biday inuu nagala qayb galo markaasi barnaamijka shaqo qaran oo loogu talagalay in looga faa'iideeyo dhalinyarta gobolka waxa guula 220 iyo 50kii hore cishidooda ku guuleystay inuu gobolku sanadkan 2018 uu markaa chance u helo tira 270 arday ah inay ka faa'iideystaan markaa ama shaqo abuur noqoto waxaan uga mahad celinayaa dhammaan cid kasta oo ka soo shaqeysay barnaamijyadaasi gaar ahaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici dhamaantood waxaan leeyahay waxay muxuu ahaay dhiirigelin u tahay ama hiigsi iyo himilo u sameynaysaa dhammaan dhalinyaradii markaa jaamacadaha dalka ka soo qalin jabiyay inay markaa ku dhiiradaan inay markaa horumarka dalka ka qayb qaataan qof kastaana waxa la kaliya la tijaabinayaa waxa weeyaan aqoontiisa iyo kartidiisa ana hadalkayga soo koobaya imtixaankaasina wuxuu dhacayaa maalinta sabtida kaliya waa laba qaybood jadwalkana haddaan ii sheego waa maadadii science marka dhacday saddexdii maadada science oo general ah iyo maths oo isku jira ayaa ugu horeeya waxa kale oo yadna ku xigta socialkii iyo englishkii oo shiftiga labaad ah intaas markaasi tahay
waanan hadalkeenu ugu badiyay waan soo koobay waxaan leeyahay dhammaan way mahadsanyihiin cid kastoo hawshaasi soo agaasintay berito oo bishu tahay 2018 waxa bilaami doona imtixaankii shaqo qaran wuxuuna ka bilaamayaa dugsiga Sheekh Jawhar waxa lagu galayaa 26 galaas waxa galaya 521 arday ee soo xoreystay shaqo qaran run ahaantii inanka guuleysta iyo ka guul dareysta labaduba way guuleysteen baan leeyahay waayo de waxa weeyaan waxa isku dayday aqoontaadii iyo tijaabisay oo ku gashay imtixaan ka dambaad ku guuleysan doontaa inaad isku hanaysaan baan jeclaan doonaa waxaan kaloo jeclahay in la ilaaliyo nidaamka iyo nabadgelyada dadka soo xoreystay u baan meesha tagaya sida ay imtixaankaas u dhacayna waa berito Soomaaliland oo dhan ka dhacaya waxaan maxad u celinayaa dadkii ku soo dadaalay oo kamid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay aad u mahadsantihiin gobolka Awdal maanta sanadka 2018 waxa konton hore way jirtay halkana 220 baa ka soo baxaya 521 ka imtixaanka u fariisan doonta ee soo xoreysatay liiska marka waxay noqonaysaa 270 inuu sanadkan 2018 ay shaqo u helay ka heshay gobolka Awdal waxaan arintaasi dhiirigelin tahay inamada jaamacadda ku dhigta iyo kuwa ku jira iyo kuwa ka soo baxayaba maadaama ay arkaan saaxiibadood oo shaqo helay runtii waa loo badin lahaa laakiin dalkeenu ma aha dal la aqoonsaday waxaan lagu dadaali doonaa sanad walba inta iyo in ka badan inaynu ka helo shaqo يعني هو برنامج runtii anigu shakhsiyan horta maskaxda in badan ku hay jiray ilaahay baa lagu mahadiyay qolku ilaahay madaxdeena ku ilhaamiyay way barnaamijkaas waxtar weyn buu u leeyahay dalka iyo dadkaba daayirtu saahu fahanto waxa weeye in kan daayirta maaha qofka bini aadmiga layliga iyo tababarku waa kan lagu hiigsado targetka aad leedahay mustaqbalka waxa weeye dalku xuquuqdu kugu lahaa ayaad wax ka gudashadoodii bilaabaysa markaad barnaamijka shaqo qaran koow aad bilowdid hadaad macallin noqoto iyo hadaad ciidan noqoto iyo hadaad noqoto dhakhtar iyo halkii lagu diray sagaalka bilood lagu tala galay sidoo uu sheegay agaasimaha guud ee barnaamijka shaqo qaran qofba waxba ka qayb galaya wax kasto ka qayb gasha wax xuquuqda dalku kugu lahayd gudatay adigana dalku xaqaaga marka uu ku seenaya marka horta inaad saa u fahantiin weeyii taasi madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo qaranka Soomaaliland waxa ku boorinaya barnaamijkaas uu hirgalay barnaamijkii kale waxaynu u baahanahay haday dhaqaaluhu inoo saamaxo wixii la oran jiray ceel jaalayaasha ama ceel walaalayaasha baynu oran karnaa inaguba haduu kaasina inoo suurto gali jireen ardayda ka soo baxday dugsiyada dhexe runtii isagu wuxuu lahaa barnaamij aad u wanaagsan buu ahaa waxaan imika Soomaaliga si dabar go'aya ardayga talentkiisa ka soo bixi jiray marka meelaha la isku yimaado gobol waliba meel buu lahaa arday la isku geeyay waqtiyada fasaxa halka waqtiyada fasaxa faashiska la isku eriyanayo waxaan ku dhiirigelinayaa aan kula talinayaa madaxweynaha iyo qaranka Soomaaliland hadii waan ogahay dadaal fara badan ba dhalinyarta u haysan qaranku u haya runtii hadii kaasina ilaahay nala qabto barnaamijkaasna hal la ogaado maskaxda hal lagu hayo in caruurteenu fasaxyada halka ay faasaska iyo isku eriyeen suuqyada dhexdooda inaynu u jahayno ceel walaalayaal la isku geeyo waqtiyada fasaxyada waa kuwi ceel jaalayaasha loo jiray ceel walaalayaal waa la oran karaa oo halka isku dhaxgal bay keenaysaa qabyaalada la dagaalamaysaa gobolada isdhaafdhaafaya wax weyn ardayda talentkooda ardayda aamusan ee imika wax alla wax maskaxdooda ku jira aan la galinayn horta ka soo bixi marka inta kaga tago waa laba barnaamij oo anigu maadaama macallin hore ahaa aan mar walba jeclaa yani oo arki jiray faa'iidooyinka uu leeyihiin dalka iyo dadkaba marka inta ka baxo waxaan ka hadlayaa damaradii Daawud la arko wax laga hadlaa waa imtixaankii shuruucdu ma rabaa inaan ka hadlo sidoo sheegay gudoomiyaha waxbarashada gobolku runtii waxa weeye berito ayuu dalka oo dhan ka bilaabmaya agaasimihii shaqo qaran maanta wuxuu joogaa wuxuu kormeer u tagay Ceerigaabo ilaa Burco bari waxa laga yaabaa inuu ka furo isagu Burco imtixaanka wasiirkii ku-xigeenkii berito Hargeysa iyaguna afarta goobada lagu galiyay iyaguna halka hawshii berida aniguna xagan galbeedka loo soo diray wasaaradda waxbarashada sidaas loo kala jiheeyay waana ahmiyadda uu leeyahay barnaamijku awgeed waa barnaamij muhiim ah aan rabno inaan ka mira dhalino
marka waxaan daayirta kula talinayaa sida shuruucdu waa tii imtixaanaadka oo kale moobilkii lama ogola buug lama ogola way markaynu cadaalad doonano waa inaan ka wada shaqeynaa cadaaladda waxa weeye dawladdu kaliya kama shaqeyn karto mas'uulku kaliya kama shaqeyn karo waa in kuwa loo cadaalad sameeynaya cadaaladda qaybtooda qabtaan oo ka shaqeeyaan waxa weeye haddaan rabnay inay noo soo baxaan inta wax taqaanaa inaga 20 meel wada fadhiyooba nin walba qalinkaagii wata kaalay moobilka kaalay sidaas aad ku kala adkaanaysaan oo la garanay laakiin haddii qaarkiin ay buug xambaarsan yihiin qaarkiin moobil xambaarsan yihiin debaritan ina tiraahdo haddana balay waxa la soo saaray kii aan waxba garanaynin anigu wax u sheegay daadnaha u sheegin isaguna waxba yoona soo qaadane marka hore cadaaladda ka wada shaqeyno wanaga imkeediisii sheegayna waxayna noqon doontaa shuruucda kii uun ardaygii lagu qabto moobil waa laga saarayaa imtixaanka waa dalka oo dhan waa shuruucda imtixaanaadka jadwalkana wuu idinku yaalaa halka jadwalkana uu ku yaalaa marka waxa weeye jadwalka shuruudaha kuugu yaalana akhriya waana de waa soo wada gasheen idinku waxba tiin imika deeman wada jaamiciin baatiin oo ardaydii waxaan intaas oo jeer baad imtixaan soo gasheen marka maanta la idinkala dardaarmi maayo waxaan filayaa jaamacaduhu kolka laga yimaado in malaha jiitinka waa la soo iloobaa jaamacaduhu way sii adag yihiin oo aad bay ula dagaalamaan jiitinka kole sidaan ogahay jaamacadaha badidoodu marka la idinka fili maayo idinka inaan jiitin iyo moobil iyo waxa la idinku arko waxaan leeyahay waanu tooyin doonaa ardaygaanu ku aragno moobil jaamacadeed ka soo baxdaan oran doonaa insha Allah sababtoo ah waxaan jaamacadaha ku ognahay inay aad ula dagaalamaan waqtiga imtixaanaadka runtii moobilada marka ninka yimaada aanu ku aragno waa marka bahalka horta aanu very sensitive baan ka ahay mana jecli inaan arko goobta imtixaanka aan ku arko marka booramo oo hooyga cilmigana ma filayay inuu berito oo waliba qoladii ugu sareysay inuu berito imtixaan ma hayda waa tijaabo waad garanaysaa awris baa lagu jiray gebigiisaba waa maalin kaliya ku dhamaanaya waxaan jecelahay si xidareen sida loo dedejiyo runtii sidoo gudoomiye waxbarasho gobolku sheegay inuu ku soo bixi doonta waxa daba aan jecelahay dalka oo dhan uga faa'iideysto maadaama maanta nasiib u yeeshayna booramo joogo arday walba aqoonsi baa laga rabaa because aqoonsigaasi wuxuu waxtar u leeyahay nin walba imika dhageyso arday walba waalid walba dhageyso hadhow hadaad aqoonsi la iman weydo imtixaanka lagu ogolaan maayo sababtoo ah in tahay magacan aad sheeganaysa adiga wax cadeynaya ma jiro anagu markii hore awal ardayda waxaanu ka qaadi jirnay sawirada markaa horena looguma keenin runtii sawiradii baa naloo keenin waqtiga iska cidhiidhi ahaa marka waxaanu ka rabnaa ardayga ID kaarkii qaranka hadaad haysato haddii aanad haysan kaarkii jaamacadda isagana waa magacaaga aad sheeganayseen anagu ku soo dhajinay wax cadeynayna adigu leedahay laga rabaa haddii kale de waa daa'uud oo u gelayo hadduu rabo inay kiisu u gelayo ama walaalkii u gelayo ama adeerkii u gelayo doon noqonaya marka cadaaladdu ka fogaanayna marka qof walba waxaad ku qanacdaa in waxa laga rabaa inaad magacaa aan ku soo dhajina adigu leedahay waxaad ku cadeysan lahayd iyo soo qaadanaysaa taasi waa ta kale waxa weeye iyadana jecelahay inaan runtii idiin sheego instructionka supervisor ku bixiyo goob walba waxa jooga supervisor iyo assistant iyo ilaaliyihii ku ilaalinayay haloo hogaansanaado waxaan ma aha xataa imtixaankii ku koobnaa wasaaradda waxbarashada kaliya ma aha qarankoo dhan baa dushay naga eegaya waa barnaamij pilot project oo guushiisa imika inoo bilow tahay inaan ka midha dhalinaan rabnaa inuu si cadaalad u dhacaan rabnaa inuu si u dhaco kalsooni ku jirtaan rabnaa oo ardaydeenu ku soo tala galaan lodbalod awrka ka dambeeyay sanqaadkiisa ka horeeyo sanqaadkiisa leeyahay marka waxaan rabnaa idinku maadaama nasiib u hesheen oo 1500 ugu horeeyay tihiin oo dalka imtixaan uga fadhiisanaya 1500 la mahadiyo oo edeb ahaan akhlaaqad ahaan iyo aqoon ahaanba ardayda soo socota kaga daytaan idin rajeynaya imtixaanna idinka imika laydinka ma cabsi qabo oo wad sida yeelaya hanixiniya liin soo cabayo biyo soo badsada la idin oran maayo intaas waxa tii dawad ka bax macnaha dawad ka bax leeyahay macnaha imtixaan ka bax baa deetihiin oo intaas oo imtixaan ma soo gasheen guul waan idin rajeynaya gobol walba iskii u tartamaya oo imika wax la yiraahdo gobol baa i dhaafayna meesha way ka baxdo sidii iskuuladoo la oranayay iskuul halka aynkaas ahayd ma gobol walba isaga gudihiisa tartamaya idinku waa soo taqaana gobol walba idinku gudihiisa in walba cadaalad halkaas aad ka fahmaysaa muraayadu halkaas ay taala waa soo taqaanaan waxa weey waa la yaqaan jeeka wuxuu ku fiicay mahdi wuxuu ku fiicay cadar wuxuu ku wanaagsan yahay waxa weey taasas ku kala tii tacliinta waa gobol walba isaga iskii u tartamaya
inta 200 iyo imse lahaayeen awdal oo kale 220 ka awdal rag meesha soo fadhiis dadka soo fadhiisan wiil iyo gabarba way isgaranayaan sida aqoonta jaamacadaha la isku yaqaanay secondaryga baa la isku yaqaanay qaar baa ilaa dugsiga dhexe yaqaanay aniguna waxaan rajaynaynaa inuu ilaahayna waafajiyo sida xaq iyo cadaaladda ah ilaahay baa caadila inaan sida ay tahay uun baan ku saxaynaa imtixaankana sidii la marin jiray kii hore waxa isagoo bilaa magaca ayaa la sixi doonaa code numberkiisi waa noo diyaar anaga imika code number serial number aan noo diyaar gareysano magacada aan idin dhajinay koow ardayuna waqtiyuuna kaaga dhicinaad raadsid magacaaga alphabetic baanu magacada u soo dhajinay ee hadaa tahay eedo un baad raadsanaysaa z hadaa tahay z-aad raadsanaysaa egas hadaa tahay egastaad raadsanaysaa qof walba magacaaga waa alphabetic bay u qoran yihiin marka waxba ha warwarin halka uu ku qorayo saaxiibkaaga isku xarafka ahaydeen ayuun baad ka tagi doontaa time kana hala dhowro waqti hore hala yimaado baarista hablaha baari doona inamadana waa sida caadiga ahayd baynu marinaynaa waxaan jecelahay inay ka dhib yaraato ardayda dhibkii naga qabsanaya sababtoo ah idinku nimanka waxa tihiin intaasoo imtixaan soo galay waaya arag ee la rabo inay idinku guri example noqotaan marka waxa laga faa'iideysanayaa dalka oo dhan inay wax inaga farxiyo qaranka ka farxiya oo ka soo baxan rishayna barnaamijka shaqo qaran waxaan ogahay dawladdu inay ku heelan inay ku bariyahan dhan ku heegan tahay hawshiina kale ee imtixaanka ka dambaysa si loo socodsiin lahaa way agaasimaha shaqo qaran ayaan wada shaqaynaa aad buu qaranku ugu mashquulsan yahay waana ugu hambalyeynaa dawladda Soomaaliland inta imika ay jirtay dhowr waxtar oo waaweyn oo xagga dhalinyarada aanu siyaasi meeyay horena waanu sheegay siyaasad ahaana cid kuma taageero cidna kuma diido laakiin waxaan arkayno kolka laga soo bilaabo ardayda scholarship ka u dirnay iyo barnaamijka shaqada qarankaba waxaan leenahay halka ka seexaya daayirteenu si ay adduunyada ula tartanto waxaan leenahay loo dadaalo nimanka dhalinyarada ah waayo nimankan rabay barita dalka inay dhaxlaan oo dalka horumar gaarsiiyaan oo u soo saaraan wax ay adduunyada kula tartamaan marka aad baan qaran karo ugu hambalyeynaya sida ay ugu soo jeedaan runtii dhalinyarta